أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa sixirkii kaahinnimada, dadka qeybka tilmaanta caraafiinta, waxyaabaha la midka ah iyo dadka markaa u taga. waxaana loo soo fasirayay waxa lagu magacaabo caraaf iyo kaahin. waxaana la soo yiri caraafku waa midka sheegtay inuu garanayo umuuraha imaanaya. wuxuu sheeganayaa waxyaabaha la xado, meelahay wax ku dhumeen iyo wixii la mid ah. waxaa kaloo la yiri kaahinka laftigiisa waa midka ka hadla waxyaabaha qeybaadka ah ee dhici doona. waxyaabaha ama qofka ka hadla waxyaabaha damiirka ku jirana waa la yidhaahdaa. xaaladahaasoo dhan ayaan markaa soo haynay, waana markaa wadnay. sidaa darteed ayaa mar kasta qofka muslimkaa looga digayaa inuu aad isaga ilaaliyo arrimooyinka. wa qaala ibni cabbaas wuxuu yidhi, fii qowmin qowm ayay ahaayeen ama jiray oo yaktubuuna qora abaajaadin xarfaha abaajaadkay qoraan, wayanduruuna waxay fiiriyaan fi nujuumi xidigahana waa eegaan. maa araa arki maayo man facala daalika qofkii arrintaa sameeya, lahu asagu inuu ku leeyahay cinda allaahi ilaahay agtiisa min khalaaqin wax nasiib ah. wax nasiib ah ee uu leeyahay kaa markaa ma jiro. ibnu cabbaas wuxuu leeyahay qoom baa abaajaad ka qora. abaajaadku waa xarfaha ciyaalka lagu farbaro, abjad, huwas iyo waxyaabaha lamidka ah. alif iyo ba iyo jiim iyo daal bay intay wax jaranjaro iyo qolal oo kala sameeyaan iyo markaa ku qoraan. fiiriya waraaqooyinka sixirkii waxyaabaha kale lagu tilmaamo, xarfaan isku toosnayn, meel ay ka yimideenna aan la aqoonin yay markaa qoraan. qoom noocaasa ayaa markaa jira. kadibna cilmi nujuumkay adeegsadaan oo xidigahay fiiriyaan, waxbay ka faalsadaan. kuwa xaaladoodu saa tahay uma malaynaayo buu yidhi inay wax qalaaq ah ama nasiiba aakhira markaa ku leeyihiin. wax nasiib ah dadka noocaas ah qiyaamaha iyo aakhira markaa kuma laha. baabu maa jaa'a, wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi nushrati sixir furka. nushrada waxaa loola jeedaa sixirka oo markaa layska furo. qof baa la sixray, qof kalea loo tegaya, kolkaasaa leeya sixirka ka fur, kaana ma bannaan yahay. can jaabirin, jaabir waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can nushrati sixir furka. faqaala rasuulku wuxuu yidhi min camali shaytaan, waa shaytaan camalkiisa. camal shaytaan waaye ayuu markaa yidhi. rawaahu axmed ba xadiidka bisanadin jayidin, sanad jayidoo wanaagsan ku wariyey. wa abuu daawuudna wuu wariyey. wa qaala wuxuu yidhi su'ila axmed ayaa la weydiiyey canhaa nushrada xaggeeda. faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud yakrahu haada kullahu, arrintaasoo dhan waa wax la karaahsado, ma wanaagsana. macnaha sixir furka in la isticmaalo nushrada taa markaa ma fiicna. waata rasuulka uu ku tilmaamaya camal shaytaan inuu markaa yahay. wa can jaabir ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa su'ila waxaa la weydiiyey can nushrati sixir furka. faqaala wuxuu yidhi hiya ayada min camali shaytaan, waa shaytaan camalkii. shaytaan camalkiisa waaye. rawaahu axmed bisanadin jayidin wa abuu daawuudna saasoo kale. wa qaala wuxuu yidhi su'ila axmed ayaa la weydiiyey can haadaa la weydiiyey intaqaanaa nushrada sixir furka ayaa la weydiiyey. faqaala ibnu mascuud wuxuu yidhi yakrahu haada kullahu,
bacdamaa camal shaytaan uu yahay waa la karaahsaday. wax fiican ma aha, wax la naco waaye, wax laga fogaado waaye, saasuu markaa tilmaamay waaye. taasuu markaa sheegay oo wuxuu leeyahay marka uu leeyahay waa camal shaytaan. ibnu mascuudna wuxuu karaahsaday oo karaahiye uu ku tilmaamay nusharada bacdamaa camal shaytaan markaa uu yahay. walilbukhaariy bukhaari waxaa u sugnaa can qadaada qultu waxaan iri libni musayib, ibnu musayib ayaa waxaan ku iri ibnulmusayibi rajulun nin oo bihi ay ku sugan tahay tibbun sixir, aw amase yu'khadu laga qabtay can imra'atihi xaaskiisa, ma awoodi kara inuu xaggeeda aado, an yuxillu canhu aw yunasharu, ma laga furi karaa? taasaa markaa su'aal ahaan loo weydiiyey can qadaada. qultu liibnu musayib ayaan ku iri buu yidhi, rajulun bihi tibb, nin la sixray, aw yu'khadu can imra'atihi, ama haweenaydiisii laga celiyoo laga qabtay, aan aadi karin xaggeeda sixir dartii, ayuxallu, ma laga furi karaa canhu xaggiisa? ma laga fura karaa waxaa kor saaran, aw yunasharu, waa isku macno. qaala ibnulmusayib wuxuu yidhi, laa ba'sa bihi, dhib kuma sugna, baas male oo waa laga furi karaa, waa la daawayn karaa macnaha laa ba'sa bihi. innamaa yuriiduuna, wax kale ma ahee waxay doonayaan kuwaa sixirka furaya, bihi asaga al-islaaxa wanaag. fa amaa maa yanfacu, wixii wax anfacayana falam yunha canhu, lama diidin. wixii nafci leh oo qofka insaanka ah u noqonaya wax u taraya, ilan sixir baa haayo waa laga furay, ama xaaskiisii baa laga qabtayoo inta la sixray yuusan keri karin, waxba haysanin, aadi karin xaggeeda, culays ka fuulo, haddii laga furo nafcibuu markaa leeyahay. wixii nafci leh oo waxtar ahna baasi markaa kuma jiro. walilbukhaariy can qadaadata qultu libni musayibi ayaan ku iri, rajulun bihi tibb, nin la sixray, aw yu'khadu can imra'atihi, ama laga celiyo laga qabanayo imra'adiisa, an yuxallu canhu, ma laga furi karaa sixirkaayo dhibkaa haaya, aw amase yunasharu, waa isku macno. qaala wuxuu yidhi ibnulmusayib, laa ba'sa bihi, baas kuma sugna, dhib mala buu yidhi. innamaa yuriiduuna, waxay doonayaan bihi kaa ay ula jeedaan sixir furka, al-islaaxa wanaag. dadku dhibi maayaan, dadna ku sixri maayaan, laakiin dadkii sixirka iyo dhaawacay dhibka loo geystay way ku daaweynayaan. idan baas mala buu dhahay. fa amaa maa yanfacu, wixii wax taraayana falam yunha canhu, wax la reebay ma aha, lama diidin. qaala ibnulqayim wuxuu yidhi, annushratu waa xallu sixri, sixirka furitaankiisa, can ilmasxuuri, kun la sixray xaggiisa markaa wayurwaade can ilxasan annahu qaala, waxaa laga wariyey inuu yidhi, laa yaxullu sixra ila asaaxiru, sixir ma furo ilaa sixiroole maahane. kan sixirka furayana waa sixiroole, kan wax sixrana waa sixiroole, saasuu markaa ula jeedaa. wayurwiya can ilxasani, xasan xaggiisa waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi, annahu asagu qaala inuu yidhi, xasanka la tilmaamaayo waa ibni abilxasan, yasaar baa magaciisa lagu magacaabaa. ninka noocaasi wuxuu yidhi, annahu qaala, laa yaxullu, ma furo assixra, sixirka ma furo ilaa saaxirun, sixiroole maahane. haddaad aragtaa nin sixir fur samaynaya, asagana waa sixiroole. qaala ibnulqayim wuxuu dhahay, annushratu waxaa la yidhaahdaa xallu sixir, waa sixir la furo can ilmasxuuri, masxuur xaggiisa laga furo. wahiya noocaan, waa laba nooc. ilaa hadda waxaan soo ogaanay laba hadal oo qaarna ay leeyihiin dhib kuma sugna, waa nafci, waxbaa la raadinayaa. qaarna ay leeyihiin waa mataqaanaa ma wanaagsana oo ma bannaana, qofkii sixir furana waa sixiroole.
rasuulkana sala allahu calayh wasalam oo xaaladaha noocaasoo kale xadiidka ku tilmaamay tibaa markana loo bayaaninayaa. qaala ibnu lqayim annushratu waa xallu sixri can ilmasxuuri wahiya nawcaani waa laba nooc. axaduhumaa midkood xallun waa furitaan bisixrin lagu furo sixir midlihi kaysoo kale ah. qof waxse sameeyey, digaag iyo dooro la qalay, dhiiggiisii meel lagu shubay, ri' mtaqaanaa lax laga soo gooyey, sixir noocaasoo kale ah inta la sameeyey qofka lagu sixray haddana kaasoo kale looga furo, kaasi waa nooc. wahuwa kaa alladii waa midka min camali shaytaanka ah oo nebigu ku tilmaamay min camali shaytaan. wa calayhi kaa korkiisa yuxmalu lagu xambaarayaa qowlu lxasani, xasan qowlkiisa. fayataqarabu waxay u dhowaanayaan annaashiru iyo almuntashiru, ka furay iyo ka laga furayba ila shaytaani bimaa yuxibu wuxuu shaytaan ku jeclaa yay ugu dhowaadeen. fayubtilu camalahu can ilmasxuuri, markaasaa camalkiisa ka buraya xaggiisa masxuurkii iyo kii la sixray. waathaani nooca labaadna annushratu waa furitaan lagu furo biruqyati tufid, waatacawudaatin aayadaha magangalka, waaladwiyati daawooyin, waaddacawaati almubaaxati ducooyin bannaan. fahaadaa jaa'izun kaa wuu bannaan yahay oo waa midka uu tilmaamayo ibnulmusayib uu leeyahay laa ba's bihi inamaa yuriiduuna bihi alislaax facamaa maa yanfacu falam yunha canhu. marka saa la leeyahayna waa in qur'aan iyo mucawadataan iyo ducooyin iyo daawooyin mubaax ah la isticmaalo. saa haddii loo isticmaalo sixir furkuna aad buu markaa u fiican yahay waaye. xaaladda labaadna waa taasoo wathaani annushratu waa furitaan oo biruqyati ruqyo lagu furo, ilaahay aayaadkiisa lagu aqriyo subxaanahu wa tacaala, iyo watacawudaati tacawudaadka, ilaahay in laga magangeliyo shartiisii wixiisa. qofkaa sixir ka sameeyey aayadaha mucawadaadka lagu aqriyo, waaladawiyati daawooyin xaba sawdaha iyo waxyaabaha markaa lamidkee rasuulku uu ku tilmaamay inay shifaa yihiin, iyo waddacawaati ducooyinka almubaaxati ee bannaan. fahaadaa jaa'izu, kaasi mid jaa'is ah oo bannaan waaye, waa la ogol yahay. amaa wixii waxaa ka soo haray oo xaalkiisu sidaa yahay markaa mamnuuc buu noqonayaa. baabu maa jaa'a, wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi tatayuri baasaysiga. wixii nahyi ah oo waciid ahoo ku soo arooray qofkii inuu markaa wax baasaysto. iyo wa qowlullahi tacaala, ilaahay qowlkiisa sarreeya oo yidhi alaa hooyaay innamaa taa'iruhum baasaysigoodu cinda allaahi alla agtiisuu ahaaday, ilaahay agtiisa ayuu ahaaday. walaakina akharahum laakiin badankoodu laa yaclamuuna ma oga. dhibaatooyinkan iyo abaaraha waxyaabahan dadku ay dadka kale ku baasaysanayaan dhammaan ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala. waa wax ilaahay xaggiisa ka ahaaday laakiin badankoodu ma oga. iyo wa qowluhu, ilaahay qowlkiisa uu yidhi qaaluu taa'irukum macakum, waa saddexdiinin ee ilaahay uu soo diray markii hore labaanu dirnay. facazaznaaha bihaalitin, ku saddexaad baanu ku xoojinay. abaar iyo dhib bay arkeen, markaasay baasaysteen. qaaluu taa'irukum macakum, baasaysigiina idinkuu idinla jiraaye a in dukirtum, markaan idin waaninay oon idin wacninay maadna baasaysanaysaan. bal antum qowmun musrifuuna, oo musrifiin ahoo xadgudbay ayaa tihiin bay dhaheen. oo musrifiin ahoo markay xadgudbay ayaa tihiin. wa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala, rasuulku wuxuu laa cadwa, cudur isku gudbin ma jirto, cudur isku daarasho ma laha, walaa tiyarata baasaysina wax jiraa ma aha, walaa haamata haamana ma jirto, waa shimbirka guunayska la dhaho, walaa safara iyo bil safar intaba. akhrajaahu, zaada muslim wuxuu ku siyaadiyey walaa naw-a, xidiga naw-a la yidhaahdana ma jiro. waa noo wala fasari doonaa walaa howl, howlna markaa ma jiro.
waxaasoo dhan waa wax dadka suduurtooda iyo laabtooda ay ka helaan, waa wax mataqaanaa ayagu ay iska mala'waalsadaan, waa wax laabahooda ku soo dhacdhaca. xaaladahaasoo dhan wax sugan ma aha, wax jiraan ma aha, wax xaqiiqo ah oo ictiqaad ahaan loogu talagalay ma aha. bacdamay xaaladdu sidaa tahay waxba kama jiraan ayaa markaa laga wadaa. wax ka jira arrimooyinkaasoo dhan markaa ma laha. marka qofka muslimka ah waa inuu qofku aad u dadaalo, waa inuu qofku khayrkii wanaagga ku dadaalo, ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu tala saarto, wixii dhibaatooyna ee ku dhaca uu sabro, wax allaala wixii wanaaga uu helana ilaahay uu ugu shukriyo. intaasaa qofka laga rabaa. abii hurayre wuxuu leeyahay, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laa cadwa ma jirto waxa lagu magacaabo cudur isu gudbin iyo cudur isku daarasho markaa ma laha. matalan qof baa cudur asiibay gacanta, wuu ku taabtay, cudurkiibuu isoo qaadsiiyey iyo wixii markaa la mid ah. xaaladda noocaasi markaa ma jirtaa la leeyahay. oo qofka muslimka ah waa inuu aad iyo aad mar kasta tala saarashada ilaahay uu markaa u badiyo. xadiis tilmaamaya yuusan aroorin qof mataqaanaa ee jiran qof saxiix ah korkiisao caafimaad qaba. waxaa dhici karta baa la yidhi taasi inaysan ahayn inuu u gudbinaayo ama uu u gudbiyey, laakiin aado alla hadday dhacdo in cudurkii iska asiibo qofku inay caqiida xumo gasho oo markaa qalbigiisa uu galo inuu qofkaa cudurkii qabadsiiyey amase asagoo cudurkii uu u keenay iyo waxyaaba markaa la mid ah. laa cadwa, cudur isku gudbin iyo cudur isku daarasho male, walaa tiyarata baasaysina ma jiro. baasaysi waataan soo tilmaannay, horeyna waan u soo marnay, kaana markaa ma jiro. oo qofku inuu tadayur samaysto uu wax baasaysto aad iyo aad inuu isaga ilaaliyo. taasaa markaa aad iyo aad u fiicanoo waxaa la leeyahay xaaladda noocaas ahna ma jirta, iska ilaaliya. haamada waxaa loola jeedaa baa la yidhi, waxaa laga wadaa waa shimbiraha ka mid ah. habeenkiibuu inta badan duulaa, dadku way baasaysan jireen. mar allaala markuu inta soo duulo xero ari uu ku dego neef baa la qali jiray. guri hadduu ku soo degana waxbaa laga cudubilaysan jirayoo dadku way baasaysan jireen. axadkood gurigiisa markuu ku soo dego waxay dadku aaminsanaan jireen guriga inuu qof ka dhimanayo, haddaanan neef loo qalin, haddaanan wan loo qalin, haddaanan orgi loo qalin. haamadana kaasaa loola jeedaa. shimbirka guumayska la yidhaahdo iyo waxyaabaha lamidka ah waaye. geeri sheeg waayay dhihi jireen, geeri sheegna ma aha. shimbir iska soo duulaya maantoo dhan oo noolay, kadibna geed ama guri isaga istaagay, xaaladaasuu markaa yahay. walaa safara, safarkana waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi waxyaabo ay baasaysan jireen. safarka bisha safar laftigeeda waa suuragal in loola jeedo. lama guursado, lama guuro, wax lama samaysto. bisha safar waa la baasaysan jiray. saa darteed baa safar iyo wixii la mid ah waa la guuraa, waana la guursadaa. dhib iyo mashaakilna markaa kuma sugna, kaana markaa kuma sugna. walaa safara, bil safar la yidhaahdee la baasaystana ma lahan waaye macnaha. oo wixii bilaha kale aad qabsan jirteen iyo saad u guuri jirteen iyo saad u guursan jirteen iyo saad u safri jirteen waxba yaysan idinka reebin ayadana. walaa safara. akhrajaahu zaada muslim. walaa naw-a walaa guul. naw afadan waxaa loola jeedaa waa xidiga. waxaa inta badan lagu fasiraa baa la yidhi imtiqaana wuuna imaan doonaa baab dhane marka uu roob u yimaado. roobku marka uu yimaado ayaa waxay dhihi jireen waxaana la ku roobeeyey xidig hebel. xidigaasaa markuu meeshaasaa noqday, meeshaa degay, xaaladiisu saa ahayd, kaasaa macnaha roobku uu ku yimid. taa markaa waa dhihi jireen. ulkama bidam haddii la yidhaahdo oo la godo, waxaa loola jeedaa meesha muraadka laga wadaa waxawaayaa la yidhi waa jinsi oo jinniga iyo shayaadiinta markaa ka mid ah. way aaminsanaan jireen. carabtu waxay ahaayeen kuwa sheegtaa qowl inuu markaa jiro oo meesha falaadka ah marka ay dadku marayaan yay dadku istustusin jireen. nuur yar iyo iftiin yar oo meesha ka bidhaamayo iyo xalad noocaas oo kale.
taa markaa way samayn jireen. amase waxaa laga wadaa annahaa laa tastatiicu an tudilla axad maca dikri illaahi yatawakal calayh. qof hadduu mar ilaahay tala saarto, dikri ilaahayna uu mataqaanaa qabsado, inuusan kaa wax ka qaadi karin. marka jinsiga iyo nooca jinniga ama shayaadiinta ka mid ah yaawal markaa lagu magacaaba. walahuma waxaa u sugnaa waa muslim iyo bukhaari can anasin qaala inuu yidhi qaala rasuuluullaahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi walaa cadwa cudur isku daarasho ma jirto, walaa tiyarata io baasaysi, wayucjibunii waxaasay cajab gelinahaya alfa'lu saadaasha wanaagsan. fa'ligu waa saadaal wanaagsan. qaaluu waxay dhaheen wama alfa'l, fa'lku waa maxay? qaala alkalimatu atayibatu waa kelimada fiican. kelimad tayibad ah oo fiican inuu qofku ku hadlo ilin waa sadaqee, taasaa markaa wanaagsan. waa waxay cajab gelinaya, waa waxaan jeclahay buu ula jeedaa rasuulka sal allahu calayh wasalam. marka anas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu dhahay cudur isku gudbin ma jirto, baasaysina ma laha, laakiin waxa lagu magacaaba alfa'lu, kaasaa i cajab gelinaya, kaasaan jeclahay. rasuulku hadallada gobol ka mida wuu saadaalsan jiray. markii sulx xudaybiya la heshiinayey, nin baa kaalada ka yimid, magaciis baa la yidhi sahal baa layidhi ama suhayl. markaasuu dhahay arrinteenna way sahlanaan doontaa, arrinteenna way sahlanaan doontaa. qof baa kaa hor yimid adigoo murugsan, farx ama faarax iyo wax noocaasee la yidhaahdaa buu ku yidhi, inshaa allah murugtu farxad baa ka dambayn doontaa. saadaasha wanaagsan taasaa loola jeedaa. marka qofka muslimka inuu tafaa'ulka markaa ku dadaaliyo faasha wanaagsan ee uusan tashaa'umin, danni xunna ilaahay u qaadin, aadbay markaa u fiican tahay. xusnu danni inuu markaa yeesho. waliabi daawuud bisanadin saxiixin can cuqbata bni caamir qaala dukrad waa la sheegay adtiyaratu baasaysi baa lagu xusay cinda rasuulillaahi, rasuulka ilaahay agtiisa. baasaysiyaa lagu sheegay. faqaala wuxuu yidhi axsanuhaa waxaa ka fiican oo ka wanaag badnaa alfaalu saadaasha wanaagsan. walaa taruddu mana celiso baasaysiga musliman qof muslim ah. qof muslim ah dantiisii xaajadiisa maba ka celisada. fa idaa ra'aa hadduu arka axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu karahsanayo, falyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow laa ya'tii lama yimaado alxasanaatu wanaagyaalka makee ee bilxasanaati dheh wanaagyaalka ilaa anta adiga maahane. adi maahee qof kaloo xasanaadka keena ma jiro. walaa yadfacu sayi'aati xumaayaalkana ma difaaco ma celiyo ilaa anta adiga maahane. walaa xawla caqli ma lihin walaa quwata iyo awood toona ilaa bika ani saaciditaankaaga maahane. inaad nagu kaalmayso oo adiga aadna waafajiso wixii khayrkii wanaagga ku jira maahane ilaa intana anigu awood uma lihin. wa can ibni mascuudin marfuucan xadiid kor loogu qaaday rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa adtiyaratu baasaysigu shirkun waa shirki. adtiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki. wamaa minaa naga mid ma aha qof annaga naga mid ah ilaa hadduu naga mid yahayna baasaysiga qalbigiisa gala. walaakina allaha laakiinse ilaahay yudhibu wuxuu kaga bixiyaa bitawakuli tala saarashada. tala saarashada ilaahay uu tala saaranayo yaa qalbiga qofka tiirada iyo baasaysiga galay ilaahay uga bixiya subxaanahu wa tacaala. rawaahu abu daawuud watirmidiy wasaxahu saxiix yeelay tirmidi. wajacala wuxuu ka yeelay aakhirahu xadiidka intiisa dambe min qowli ibni mascuud. ibni mascuud qowlkiisa inuu yahayo ma uusan ka dhigin xadiid qaybtaa dambe ee waxa uu ka dhigay baa loola jeedaa inuu qowl ibni mascuud leeyahay uu yahay. laakiin xadiidka nebigu wuxuu ku eg yahay adtiyaratu shirkun intaa. wamaa minaa ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakuli waa hadal ibni mascuud ah. baasaysigu waa shirki markuu rasuulku yidhi yaa ibni mascuud wuxuu dhahay wamaa mina naga mid maahan qof ilaa uu naga mid yahayna qalbigiisa wuu soo galaa oo waxbuu baasaystaa. walaakina allaha laakiinse ilaahay yudhibu wuxuu kaga bixiyaa qofka ahlu iimaanka ah bitawakuli tala saarashada ilaahay. tala dhiibashada ilaahay talada uu u dhiibanayaa looga bixiyaa. wali axmed min xadiidi ibna camr
man radathu qofkay celiso الطيرة baasaysi can xaajatihi dantiisa iyo wuxuu u socday faqad ashrak ilaah buu u shariig yeelay. qaaluu waxay dheen famaa kafaaratu dalika, arrintaa maxaa kafaara gud u noqonaya? qaala rasuulkuna wuxuu yidhi an taquula inaad dhahdo allaahuma ilaahayow laa khayra khayr ma jira ilaa khayruka khayrkaaga maahane, walaa tayra baasaysina ma jiro ilaa tayruka kaaga maahane, walaa ilaaha hayruka ilaahan adi ahaynna ma jiro. intaa hadduu dhaho qofkii wax baasaystay ay dantiisii xaajadiisii ka celisay, qofka noocaas ahna ilaahay kafaara gud buu markaa uga dhigayaa. kafaara gud bay u noqonaysaa man raddathu adtiyaratu. maxaa laga wadaa? waxaa xaaje uu lahaa ka celiyey baasaysi. shimbirkii uu dhagax ku tuuray, midig buu aadi waayey, bidix buu aaday. safarkuu socda uu iska joojiyey, guurkiisii uu iska dibdhigay oo hakiyey iyo wixii markaa la mid ah. xaaje iyo dan uu leeyahay qofkay baasaysi ka celiso faqad ashraka, wuu shariig yeelay. qaaluu famaa kafaaratu dalika, maxaa arrintaa kafaara gud u ah? qaala an taquula inaad dhahdo allaahuma laa khayra ilaa khayruka, walaa tayra ilaa tayruka, walaa ilaaha hayruka ilaahan adi ahayna markaa ma jiro. inta hadduu qofkaasaa dhibkaa sameeye uu dhaho, ilaah dembiguu uga dhaafaya subxaanahu wa tacaala. walahu waxaa u sugnaa min xadiidi alfadl bni cabbaas inama atiyaratu maa amdaaka aw raddaka. tiyaro lagu sheegaya wixii ku kaxeeya ama ku celiya. shimbirkii baa tuurtay sajrisay, midig buu u duulay. shimbirkaa midigta aaba darteeda ku kaxeeyey oo safarkii dantii aad u samaysay. aw raddaka ama ku reebo oo inta bidix uu u duulay yaad ujeeddadaadii ka hartay waad samayn weysay. kaasaa la yidhaahdaa inama atiyaratu maa amdaaka aw raddaka, ama ku celiya. kaasaa markaa la yidhaahdaa ina labada xaaladba aadaan isaga ilaalino. baabu maa jaa'a fi tanjiimi, xidigaynta wixii ku yimid waaye. laakiin meesha haynoo joogto. wabillahi tawfiiq, wallahu aclam.